kulanti wacan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada janalka wararka ee Samakaab TV. taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha 6 sanadka 2019. qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo safar aanan loogeyn ku tagay Addis Ababa, Somaliland iyo Puntland oo shaaciyay xilliga isdhaafsanayaan maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaalkii Tukaraq. waa kuma wasiirka kaliya ee aanan ka amar qaadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Kheyre kana madax bannaan. madaxweyne Waare oo si kale uga hadlay xaaladda cakiran ee Galmudug cabsina ka qaba inay maamulkiisa saameyn ku yeelato, iyo dowladda Tunisia oo diiday in dooni siddeed tahriibiyaal ah ay dalkeeda ku xirato. usoo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa waxa uu ku tagay safar aan horay loo shaacin. waxaa garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, isagoona halkaas kula yeelanaya kulamo looga hadlayo xiriirka u dhaxeeya labada dal iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ka jira gobolka, taasoo ay kamid tahay xiisadda u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya. shalay ayay ahayd markii Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay inuu xal u raadin doono khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee salka ku haya sheegashada ay Kenya sheegayso in badda Soomaaliya iyadu leedahay, taasoo haatan dacwadeedu ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka. Puntland iyo Somaliland waxa ay shaaciyeen xilliga isdhaafsanayaan maxaabiista ay ku kala qabsadeen dagaalkii Tukaraq ka dhacay. Puntland iyo Somaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Isniinta oo biri ay isdhaafsadaan maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaaladii ku dhex maray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. maamulka Puntland ayaa la sheegay in dagaalkii Tukaraq ay Somaliland kaga qabteen 18 askari oo haatan 3 kamid ah ay maxbuusaan ugu jiraan jeelka magaalada Garowe. maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaalkaasi ay Somaliland kaga qabteen 18 maxbuus, hase yeeshee markii dambe ay 18 kamid ah dib u sii daayeen kadib markii ay heleen xog ku saabsan in ka soo jeedaan gobolada Sool iyo Sanaag oo gacan ku hayntooda isku haystaan magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa. sidoo kale Somaliland ayaa iyaduna dagaalkii Tukaraq ku sheegtay inay Puntland kaga qabatay 14 maxbuus kuwaasi oo haatan ku xiran Somaliland. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa munaasabadii 18 May dhawaan waxa uu markii u horeysay kaga dhawaaqay in Somaliland ay diyaar u tahay in maxaabiista ay ku qabatay dagaalka dhex maray Puntland ay ka sii deyso Somaliland, waxaana muuqata in Puntland ay dhankeeda arrinkaasi u soo dabacday oo maxaabiistaasi iyana xabsiga ka sii deynayso. waa kuma wasiirka kaliya aan ka amar qaadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Kheyre. golaha wasiirada ee Soomaaliya waxa ay ka kooban yihiin ku dhawaad 70 wasiir marka la isku daro dhammaan. in badan oo kamid ah wasiiradii xilka laga qaaday iyo kuwii iscasilay oo xilalkooda waayay dhammaantood waxa isku dhaceen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Kheyre. wasiirada diiday inay daacad u noqdaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ee xilalkooda waayay waxaa kamid ah Yuusuf Garaad Cumar, Cabdi Faarax Juxa, Qadra Axmed Ducaale, Cabdi Fataax Ibraahim Geesay iyo Sheekh Daahir Maxamuud Geelle. hadda golaha wasiirada ee xukuumadda waxaa ku jira hal wasiir oo akademig ah kaas oo aan isla markaana ka amar qaadan si toos ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda. wasiirkaas ayaana Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya, sidoo kalena horey u soo noqday safiirkii Soomaaliya Mareykanka u qaabilsanaa. ayaa la sheegay inuu yahay ninka kaliya aanan ku dhaqmin amarada ra'iisul wasaaraha. warar la helay ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda uusan gebi ahaanba xaadirin inta badan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo kulamada golaha wasiirada, sidoo kalena uu ka biyadiiday amaro uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya doonayay inuu fuliyo. amarada uu diiday qabashadooda waxaa kamid ah in ra'iisul wasaaraha uu ku wargeliyo marka uu qabanayo shirar jaraa'id ama uu soo saarayo war saxaafadeedyo. sidoo kale Axmed Ciise Cawad ayaa diiday inuu ka qayb qaato ololayaasha uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ku qabanayo shirarka caalamiga ah ee uu warbaahinta kula hadlayo. waxyaabaha kale ee la ogaaday waxaa kamid ah in wasiir Cawad shirka golaha wasiirada uu aad uga dhaleelay xukuumadda iyo waxyaabaha ay ku qaldan tahay, sidoo kalena waxa uu si toos ah uga soo horjeestaa waxyaabaha qaarkood ee lagu amro. dadka qaarkood oo lala hadlay ayaa waxa ay sheegeen in wasiirka arrimaha dibadda uu si toos ah u hoostaga xafiiska madaxweynaha, go'aamada uu qaadanayana uu ka talageliyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, halka marmarka qaarna ay dhacdo in xafiiska ra'iisul wasaaraha la geeyo xilli dambe.
madaxweyne waarana waxa uu si kulal uga hadlay xaaladda cakiran ee galmudug ka jirta. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug, isagoona sheegay inaan la aqbali karin tafaraaruqa siyaasadeed ee galmudug haatan ay wajahayso. madaxweyne Waare ayaa dowladda dhexe iyo cid kasta oo ku howlan ka qayb qaadashada arrinta galmudug ugu baaqay inay faraha kala baxaan si arrimahooda galmudug iyagu u toosistaan. xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kale ee ka soo jeeda galmudug iyo Hirshabelle ayuu ugu baaqay inaysan marnaba aqbal in xaaladda galmudug ay sidaasi sii ahaato, iyadoona isku socodka uu sheegay galmudug iyo Hirshabelle u dhaxeeya inuu ka cabsi qabo inuu hakad ku yimaado, taas oo dhanka koonfurta Soomaaliya uu sheegay inay haatan gebi ahaanba kaga xiran yihiin Hirshabelle. dadka reer Hiiraan walwal ayay ka qabaan xaaladda cakiran ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo wadooyinka, balse haatan waxaa nagu soo cusboonaatay arrinta kale ee galmudug. runtii si weyn ayaan uga cabsi qabnaa arrintaas, waxaana rajaynaynaa in arrintaas xaaladeeda la hakiyo. cid kasta ee ku howlanna waxaan uga degayaa inay arrintaasi faraha kala baxdo, ayuu yidhi madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. wararkii ugu dambeeyay ee weerar xalay lagu qaaday xarunta Garasbaalley. warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday xarunta maamulka degmada Garasbaalley ee ku taala duleedka Muqdisho. dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta qaarkood ayaa sheegay in kooxaha ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ilaalinaya xarunta degmada, taas oo ay rasaas isdhaafsadeen. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa gaaray xarunta weerarka lagu qaaday oo ku taala dhabarka dambe ee jaamacadda Shabeelle, kuwaasi oo gurmud u fidiyay ciidankii halkaas ku sugnaa. ugu yaraan 2 ruux ayaa waxaa la sheegay in dagaalkaas uu dhaawac ka soo gaaray, kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka ee Muqdisho. ilaa iyo haatan ma jiro war ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan weerarkaasi xalay ka dhacay Garasbaalley. sidoo kalena ma jirto cid weerarkaas ilaa iyo haatan sheegatay. muwaadin Soomaaliyeed oo xatooyo lagu eedeeyayna waxaa lagu xiray dalka Malta. warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in booliiska ay xireen nin Soomaali ah oo lagu helay inuu 3 moobeel uu xaday 3 maalmood gudaheed. booliiska waxa ay sheegeen in Cabdisalaam Maxamed Afrax oo 32 jir ah lagu helay dambiyadaasi isbuucii la soo dhaafay lana soo taagay maxkamad. dacwad ooga ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Jeffy Sissaku ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanaha 2 moobeel uu ka xaday gaari, halka moobeelka saddexaadna uu ka xaday goob ganacsi. booliiska ayaa sheegay inay dabagal ku sameeyeen eedeysanaha kadibna ay wicitaan ka heleen mid ka mid ah taleefanada milkiilayaasha, kaas oo u sheegay in ninkaasi uu dambiga ku cadeyn karo. qareenka u doodaya ninkaasi Soomaaliga maxkamadda kama uusan codsan in ninkaasi damiin lagu sii daayo. dhinaca kale garsooraha maxkamadda oo lagu magacaabo Donlata Farida ayaa waxa uu ku amray eedeysana Cabdisalaam Maxamed Afrax in lagu sii hayo xabsiga tan iyo usbuuca dambe oo dib loo qaadi doono maxkamadeyntiisa. Boosaaso haddana eegnana magaalada Boosaaso ayaa waxay ka go'doomaysaa magaalooyinka kale ee Puntland. saacadii la soo dhaafay waxaa roobab daadad watay ee ka deegaano ka tirsan gobolada Bari iyo Nugaal, waxaana roobabkaas ay saameyn ku yeesheen Puntland guud ahaan qaybo ka mid ah. wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in daadadkaasi ay jireen wadooyinka ka baxa iyo kuwa soo gala magaalada Boosaaso, taas oo keentay magaaladaasi inay go'doon ka noqoto magaalooyinka kale ee Puntland. qaar ka mid ah darawallada gaadiidka ayaa waxa ay sheegeen inaysan Boosaaso geli karin kana bixi karin sabab la xiriira wadooyinka oo aad u burburay. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shalay magacaabay guddi gurmad ah oo fatahaadda roobabka ah ka shaqeeya, waxaana uu sheegay inuu kala shirayo hay'adaha samafalka sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa. shirkadda Hormuud Foundation maanta waxa ay deeq lacageed u qaybisay qoysas danyar ah, kuwaas oo ka soo jeeda qaxootiga Yamaniinta ah ee ku nool magaalada Muqdisho kana soo cararay dalkoodii oo colaad ay ka jirto. shirkadda Hormuud Foundation ayaa waxay qoysaskaasi oo gaaraya 300 oo qoys qof kasta la siiyay $100 isagoo oo qoys matalayay, iyadoona lacagtaasi loogu talagalay in carruurta lagu codsiiyo. gudoomiyaha shirkadda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa waxa uu sheegay in muhiimadoodu ay tahay sidii dadka danyarta ah loo caawin lahaa, loogana warqabi lahaa dadka aan awoodda dhaqaale lahayn. aad ugu faraxsanahay inaan qabanno barnaamijkan uu yahay ujeedadiisa haddii Allah uu saamaxo in kaalmo ama taageero dhaqaale ama lacageed aan ku gaarsiino in ka mid ah jaaliyadda Yemen ee ku soo qaxay dalkan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah Tunisia ayaa diiday doon 8 tahriibiyaal ah oo badda laga soo badbaadiyay.
maamulka dalka Tunisia ayaa hor istaagay 75 muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badweynta inay soo galaan dalkaasi sida laga soo xigtay kooxaha qaabilsan xuquuqul insaanka iyo kabtanka markabka waday dadkaasi la soo badbaadiyay muhaajiriintaasi iyo doonidii ay la socdeen ayaa dul sabeynaysa biyaha caalamiga ah ee badweynta kadib markii ay waxyeello soo gaartay matoorkii doonta ay saarnayeen waxaana halkaas ka soo badbaadiyay markab laga leeyahay Masar kadib markii maalnimadii shalay ahayd Maalta iyo Talyaaniga ay diideen in markabkaasi uu ku soo xirto xeebahooda ayaa sidoo kalena waxaa dalka Tunisia uu diiday in sidoo kale uu ku xirto markabkaasi jasiiradda lagu magacaabo Zaires dekedeeda dowladda Tunisia ilaa ay hadda ma aysan bixin jawaab ku aadan sababaha ay dadkaasi muhaajiriinta ugu diiday inay ku xirtaan dekedaas dadkaasi la soo badbaadiyay ayaa waxay isugu jiraan 64 u dhashay Bangladesh 9 Masaari ah iyo 1 ruux oo Moroccan ah iyo sidoo kale qof kale oo Suudaan u dhashay kuwaas oo la tilmaamay inay ka soo baxeen dalka Suudaan xeebaha ku yaala bishii hore 60 muhaajiriin ah oo badankooda ay Bangladesh ahayeen ayaa ku geeriyooday xeebaha dalka Tunisia. guud ahaan saaxiibayaal warkeena intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe inoo saar gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan mahadsanid.